bidhaan baanu daraad oo saaxiibkay ah oo laascaanood joogaan wada hadlayn oo xildhibaan golihii shacabkan ay gula jiraa isaga iyo xildhibaanada kaleba run ahaantii nin baa ii soo diray meel soo post gareeyay tweet uu leeyahay bidhaan baa Eritrea tagay waa u diro waxaan war go'aan ahayn goormaad Eritrea hub ka soo qaaday uu qoslo ilo soo hadlo wuxuu war laascaanood baan joogaa waa u hambaliyay waxaan ku leeyahay hawsha ku fududay markaan iyo dad meel kale tagay ma nihin wadaadkii ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahaan jiray Mahdi Guuleed oo maalin leh bidhaan baa Eritrea nin baa igu yiri buu tagay ma aqaan warkaas meeshana ma qaban mana ku jirin wuxuu u soo galiyay garan maayo war iska ku turkuteena hode kulay ninka weyn aanan ka filanayna odayga ah inuu idaacad ka sheego buu ahaa waxaan isleeyahay wuxuu ula jeeday bariyahan shaqadii baa ka dhamaatay oo madaaqolada Soomaaliland buu fariin u dirsanayay inuu Hargeysa ku noqdo raba مسؤولية عدة ساقادة مسؤولية عدة صالة هي خلتك عدنا اللي هي خلتك أيان دردي وان كل حجرنا بقى وانا أركي على بدي دنا عبا إني عد ذين أيان دد كان دد ميل كله تجي معها Soomaaliland nimanka madaxda ka ama haysta waa dadaan qaraabo iyo ehelnahay laakiin waxa la isku haystaa waa midnimada Soomaaliyeed walaalo midnimada anaga dhanba u taagan aniga Mahdi Guuleed midnimada u taagan calanka Soomaaliya halka uu suran yahay gadaashayna waa yaala midnimada aniga iyo awoowayaashay waanay keeneen waanay u taagnaayeen waanay u taagan yihiin midnimada 94kii anaga isaaq ah gudaha iyaga ayaa isku dilnay waa federaal baa nalagu dilay waan ka heshiinay war midnimo waa u wada taaganay meel lama wada kala tagaynay ma heshiina walaalayaal dadka qaarkii ama qayb kamida Soomaaliya oo Puntland gobolka ah inuu dagaalka iyo talada iyo faragelin qayr caadi ah la soo galo Sool isagoo raacaya hab qabaliya taasi sax maaha dadka reer Puntland Soomaaliyeed iyo caalamka waxa uu cadeynaa maamulka dawladda Puntland dagaalkaas qayb kama aha kamana noqon doona hadii codsi rasmi ah oo imaanin garaadada gobolka Sool laakiin waxay noo sheegeen inay ku filan yihiin inay difaacaan ciradooda mushtaraka horta Somaliland dadku Soomaaliya saad og tahay markii dawladda Soomaaliya burburtay ka bacdi waxa loo degan yahay qabaa'ilo iyo reeraa loo degan yahay oo nidaamka ama curfiga Soomaaliya ka jira waa nidaam reeraysan dawladnimadeena 4.5 bay ku dhisan tahay waa ogta deegaanka dad reeraa degan la iskuma haysto marka deegaano reero kale ay degan yihiin reerihii deganaa oo dadka aan ku sheegayo oo majoritigooda ay yihiin dhulbaanta iyo faqashini go'aan bay gaareen ay leeyihiin anagu Soomaaliland markii hore xoog bay nagu la joogtay hadana dib noolama joogayso midnimada Soomaaliyana kama tanaasuli karo marka ma jirayso meel la yiraahdo Soomaaliland way diidantaa inay ka baxdo maalin dhaweed xildhibaanaan ku kulannay golaha shacabka gudihiisa ku sheekaysanaa is aragnaa waxaad arkaysaa xildhibaan hooyadiina reer laascaanood tahay aabihiina reer Caynaba yahay hooyadiina reer laascaanood tahay aabihiina reer Xudun ama ceelafoyn uu yahay oo labadii dhinacba laga ooyay dhibaatadii reerkii markii gaadhay halkan ilmaabtiyadii baa ooyaya abtigii bay wax gaareen halkan ilmaarreedadii baa ooyaya habarwadaagii wax gaareen marka arin maxaan ku idhaahdaa murugo ah oo weyn weeye dalka Soomaaliyeed waxa kaliya oo la garanayaa waa dad u kala duwan u kala degan dhulkan ugu kala qaybsan yahay hab beele dad isku beel ah laba maamul haddii ay doonaan waa geli karaan laakiin dad isku beel ah lama kala xadeyn karo lamana kala goyn karo Puntland waa jirta in qayb laga aha oo dadka deegaanadaas Puntland dhismaheeda waxbay ka dhiseen waa isugu yimaadeen laascaanood markii la qabsanayay ama goboladaas la qabsanayay oo Soomaaliland qabsanaysay xoog ku qabsanaysay dadka laga qabsaday Puntland bay ahaayeen marka Puntland doorkii ay ku lahayd deegaankaas iyada gabtay dadkii deegaanka marka waa tashadeen waxay yiraahdeen siyaasadda iyada waa u madax banaanaanayna haddaan madax banaanayna waxaan xaq u leenahay in aanu dawladda dhexe federaalka hoos tagno oo aan Puntland noqon Soomaaliland noqon annagana golihii baan ku jirnaa mas'uuliyiin Soomaaliyeed baanu nahay war berri waa la heshiin doonaa yaan magaxuma ka raacin qofnoona ayaan leeyahay anigu intii Sool baa dhulbaanta la digaa wax lagu qoslo waa Sool waa la yaqaanaa waa deegaan dhulbaanta gobolkaas
deegaano kaloo la wada degaa waa jiraa tog dheer haaf ka mid a dhulbahantaa dego buuhoodla tog dheer ka tirsan degmada ugu weyn oo ugu ballaarana sanaag baa la degaa la isla degaa laakiin sool weligeed ba la iskuma qabsan maamulka Puntland iyo dowladda Puntland ka dhisan ee Soomaaliya ka tirsan iyo madaxda Soomaaliya waxa leeyahay war faragelinta ciidan leh ee kharash leh ee tala soo gurida leh xaq ma aha ee kala baxa oo nabadgelyo oo dhamaystiran loo daayay waxaan rabaa inaan adduunkana la marin habaabin taariikhdana abeen laga sheegin ee runta mar walba lagu soo dhawaado waxaan taageersanahay horena u taageernay go'aanada isimada dhaqanka ee reer Sool dagaalkan hadda jiraana dagaal reereed maaha dagaalka hadda socdaa dagaal reereed maaha waa dagaal afkaareed iyo siyaasadeed annaga nimankaas aad hadda ii sheegaysay oo deegaanadaas ama ku dhow ama tog dheer aan wada degno ama aan sanaag wada degno qaybtood Sool cidina lama degto dad yar baa caynaba iyo agaarkeeda joogay deegaanada kale la wada degaa tog dheer iyo sanaag baa la wada degaa oo dhinacii tanaasul samayn kara oo waliba dhinaca aan leeyahay Somaliland wixii kasta oo tanaasul oo ay samayn karaan ha tanaasuleen ha sameeyeen nabadda iyo walaaltinimada awgeedna ha u tanaasuleen midida daabkeeda waad ogtooda anigu ma hayo rag baa haya musubiixood dhowr goor weydiisay baa haya inuu tanaasul sameeyo Somaliland inay tanaasusho ayaa loo baahan yahay oo nabad lagu gaari karaa kaligeed Somaliland xadkeeda la oran maayo gooni ha loo faquuqo sharciga Afrika ma ogola كعقل ما أقرأ سومالي وقف سنته dagaalka khatarta ku ah qarannimada inuu yahay tan SSC waayo waa dad doonaya inay goostaan Puntland iyo dadkaanu de waa dad ay waxna ka dhaxan jireen markii hore hadda siyaasaddu kama dhaxayso laakiin iyo dagaalka midna kama dhaxeeyo laakiin dad wax ka dhaxan jireen waaye waana dad tol ah Ingiriisku marbuu Soomaaliya oo dhan haysan jiray taariikhda in dib loo eegaa fiican oo magaaladan aan joognay magaalooyinka Puntland oo dhan haystay marba Talyaanigu dalka oo dhan qabsaday oo xataa Itoobiya qabsaday arrimahaas ma noqon karaan xujo taariikhda marka dib loo raaco arrintani waa arrin Somaliland gudaheeda waxa weeye gobol Somaliland kamid ah oo dadkooda iyo muwaadiniinta Somaliland oo wax ka tirsanaya dawladda waxaan qabaa oo aan aad iyo aad u dhaliilayaa prime ministerka iyo madaxweynahaba inay ka gaabiyeen doorkoodii waajibka ahaa waa inay door fiican ka qaataan arrinta ka jirta laascaanood indhaana kama qarsan karaan degaana kama cufaysan karaan waa inay ka hadlaan waa inay gacan siiyaan waa inay dhaqaale siiyaan waa inay hub siiyaan waa in ciidan xitaa loo diraa si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta